waxaa si weyn garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo loogu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen iyo wafdi wasiiro iyo xildhibaano ka kooban uu hogaaminayay kuwaasi oo labadii toddobaad la soo dhaafay ku maqnaa Garoobe. Gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed xubno ka tirsan wasiirada xildhibaano odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidanka ayaa ka qayb qaatay soo dhaweynta madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftigareen oo gudaha garoonka saxaafadda kula hadlay ayaa ka warbixiyay shirkii magaalada Garoobe. laakiin aniga waxay ilaahay shir fiican oo kulan fiican oo lagu sheekaystay waqti fiican loo helay haddii ilaahay yiraahana aan jecelnahay waqtiyada dhiman in la dhamaystiro waxa laga wada hadlayo waxay ahayd maslaxada ummadda Soomaaliyeed masiirka ummadda Soomaaliyeed dastuurka doorashooyinka qaybsiga dhaqaalaha dib u xoreynta dalka la dagaalanka argagixisada shabaabka intaasoo ajandaha laga hadlay waana la soo dhaweeyay waxaana jecelnahay haddii ilaahay yiraaho in kulan kale uu yimaado oo uu ka soo baxo wax fiican waxaan rajaynaynaa weli kama noqonin laakiin aragti fiican baa laga bixiyay iyo wixii jiray oo baahiyaha baa la sheegay in is arkana aad muhiim u ahayd muddo dheer dadka oo aan is arkin waxyaalaha ugu darnaa oo aadka loogu daahay waxay ka mid ahayd qadiyadda galmudug oo muddo dheer soo socotay heshiisyadii ahlu sunna iyo galmudug oo dibinta lagu soo sameeyay iyo maandayka waqtigooda inta ayadana aad looga wada hadlay way fiicnay waxyaalaha laga hadlay waxaa ka mid ah arrinta doorashooyinka oo haddeertan madaxweynaha ayaa dhanka kale waxa uu soo dhaweeyay shirkii iskaashiga oo maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Puntland Garoobe ku yeesheen iskaashiga aan suubsanay iskaashi maamul goboleedyada ay kula shaqeynayaan oo ay ka wada shaqeynayaan waa danahooda wax dawlad lagu dhaleecaynayo maaha waa wax maslaxada ummadda Soomaaliyeed laga shaqeynayo oo qodob dastuuri ahaana sheegay qodobka koowaad ee dastuurka ku qoran in iskaashi ay suubsan karaan maamul goboleedyada marka waa iskaashi saddexdaas maamul goboleed aan suubsanay Shukri Ismaaciil Axmed RTN TV Baydhabo.